kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada maxaa maanta ka dhacay Matabaan jugsanteesa ee ka dhacday halkaasi maxaa laga soo warinaya waqtigan idin la hadlayno xaalad sidee ayaa ka jirta deegaanka Matabaan ciidanka xooga dalka ee halkaas ku sugan iyo macusliyada deegaanka Matabaan maxay sameeyeen ficil cajiib ah oo markaas laga soo warinayo oo si weyn markaas baraha bulshada wasta ayay sameeyeen doornimadii saakay toole waxa halkaas ka bilowday qaraxyo iyo waliba sidoo kale ismiidaamino culus yaase maanta ku guuleysay deegaankaasi gacantiisa waqtigan la joogo ku jirta macluumaadkaasi iyo macluumaadka loo dheeray halkan kula wadaagi doona hadii ay tahay markii ugu horeysay oo ku soo gaaro bogana fadlan followna soo like gare oo share gare si saaxiibo fara badan u gaaro way soo dhawaada deegaanka Matabaan ee gobolka Hiiraan maanta ama duhurnimadii waxa si weyn markaas halkaas ugu dhacay dagaal ku bilowday qaraxyo iyo waliba sidoo kale ismiidaamin taa oo markaas lagu beegsaday kooxda AAS oo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaas si weyn ugu dagaalamaysay ciidamada xooga dalka iyo macusliyada deegaanka ayaana kaalin mugle ka qaatay dagaalkaas maanta halkaas ka dhacay waxaana sidoo kale jiraan dhimasho fara badan iyo waliba sidoo kale qasaaro lixaad leh oo halkaas laga soo warinayo deegaanka Matabaan waxaana si weyn markaas aagiisa ama tuulooyinka ku gaadaaman ula wareegay mise gacan ku haynta deegaankaasi u qaatay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo waliba sidoo kale macusliyada deegaankaasi waxaana sidoo kale ay jiraan ama ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee halkaas ku sugan ay sheegeen in ay si wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah la dagaalanka kooxdaas iyo waliba sidoo kale wax walba ammaanka lidku amisana ka soo horjeeda misna dawladnimada Soomaaliya ee ka soo horimaanaya waxaana sidoo kale macusliyada deegaanka ama dadka halkaasi ay sheegayaan in kaalin lixaad ay ka geysteen weerarkan saaka halkaasi ee ka dhacay misna markaasi la isku farsaaray waxaana sidoo kale bulshada halkaasi ku dhaqan ay inta badan ay ka wada hadlayaan misna markaasi ay hadal hayaan xaaladda halkaasi ka taagan iyo waliba sidoo kale deegaanada cusub ee hor leh oo maanta markaasi kooxdaas laga sii farmaroojiyay waxaana markaasi ay jira qasaaro fara badan oo halkaas loogu gaarsiiyay kooxda AAS iyadoo markaasi ciidamada macusliyadu ay sheegeen in ay ka warheleen xilli markaasi ay isku urursanayeen deegaan aan sida uga fogeyn ee Matabaan oo aageeda markaasi ama tuulooyin ku gaadaaman kamid ah iyagoo halkaas lagu warhelay in ay markaasi ay ka shaqeynayaan misana ay ka wadeen fulinta iyo waliba sidoo kale abaabulida sidii halkaas dhalinyarada Soomaaliyeed ku nool markaasi loo mir bedeli lahaa misana markaasi loo marin habaabin lahaa laakiinse ciidamada deegaanka ee macusliyada oo runtii si nafoornimo leh ugu warhelay xogta misana dadka deegaanku ay siiyeen ayaana durbadiiba markaasi ku baxay iyagoo markaasi kaashanaya ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Matabaan waxaana wali jira howlgallo ka dhana sida ay sheegeen ciidanka halkaas misna saraakiil aan la xirin oo inoo sheegay inay markaas si joogtin doonaan howlgallada ka dhanka ah ee deegaanadaas misna loogu xoreynayo kooxda AAS waxaana sidoo kale jira in ciidamada macusliyadu deegaano kale hor leh ay ka sii wadaan qudhooda howlgallo baaxad leh iyagoo markaas ku daba jira ama ceyrsanaya kooxda AAS meelihii ay markaas ku dhuumaalaysanadeen bulshada deegaanka ayaana markaas si weyn u soo dhaweeyay sida ay sheegayaan dadku in markaas kaalin mugle ay ka qaadanayaan ciribtirka misna markaas dagaalka ka dhanka ah kooxda AAS iyagoo markaas sheegay in ay qayb lixaad la ka geysan doonaan dhankooda maadaama dagaalku markaas uu yahay mid kooxda AAS iyo dawladda u dhaxeeyo uu yahay bulshada ayaana sidoo kale waxa ay tilmaantay in kaalin lixaad ay ka qaadan doonto misna markaas si weyn ugu shaqeyn doonto ammaanka dalka iyo waliba sidoo kale kaalintooda iyaguna markaas ugu geysan lahaayeen dhinaca kale ciidamada macusliyada ayaana wacad ku maray in aysan markaas halkan ugu hareynin ayna si daba joogi doonaan misna markaas kaalintooda aysan sin u gabi doonin oo meel weyn markaas ka gaarsiin doona dagaalka ka dhanka ah kooxda AAS iyo waliba sidoo kale garab istaaga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed saaka ama duhurkan Matabaan looma kala harin iyadoo markaas bulshadu qudhooda markaas ay qaateen qoryaha iyo waliba sidoo kale wax walba ay ku dagaalami karaan maadaama bulshadu ay muddo ku jireen dhibaatooyin kala duwan ay markaas ay kala kulmeen kooxda AAS waxaana sidoo kale ay sheegeen inay markaas iska dulqaadi doonaan misna ay ka shaqeyn doonaan amnigooda si markaas xor noqon lahaayeen magaalada markaas ugu soo safri doonaan waxaana sidoo kale ay jiraan deegaanaha waa markaas deegaanada ku dhow misna aaga ka in yar ka baxsan magaalada Matabaan ayaan markaas ku dhuumaalaysaneen kooxda AAS iyo waliba sidoo kale dadka la shaqeeyayba aragtidaada qaybta safaalada commentiga noogu reeb hadii bulshada Matabaan ay sidaan u kaxday deegaanada kale ee ku gaadaaman kooxda AAS ay ku dhuumaalaysanayso macquul gal ma tahay in bulshadaas iyaguna ay fahmaan ay iska dulqaadaan muuqaalkan waxaan ka codsanayaa si meel dheer u gaaro inaan noo like gareyso hadii uu ku soo gaaro mahadsanid